مسؤولينta kala gedisan isugu jira heer qaran heer gobol iyo heer degmo ururada bulshada dhammaantood ah beelweynta Midlood hay'adaha kala gedisan regionalka dhammaantiin kuwa xilka hadda haya iyo kuwa hore u hayay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaam kadib waxaa sharaf ii ah maantay beelweynta Midlood inaan kala soo qayb galo munaasabadan dib u heshiisiinta iyo isudumada ummadda ah oo runtii aan ognahay dadaalka dheer oo loo soo galay anigoo jecel inaan halkaan ammaan uga soo jeediyo walaalihii tabliiqinayay yani gubashan suuragalnimadeeda cid walba la hoos fariistay cid walba ku qanciyay kana dhaadhiciyay gubasha oo bilowgeedii dadka qaar ay shaki iyo wax ka qabeen inay shaki lahayn oo dan caam ah oo ummadeed ay tahay ku qanciyay kuwaas ayaan rabaa inaan uga mahadceliyo mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay bacdallah runtii waxaan dhihi karnaa wax kasta oo wanaagsan oo ilaahay ka raali yahay oo aan laga daalin sidaan ayaa loogu guulaystaa marka cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa waa tusaale ay ku dayan karto maantay dadaalkii ay galeen shakhsiyaadkii walaalaha ahaa oo arrintan in muddaa ka soo shaqaynayay miraheedii waa muuqdaa waxaana rajaynayaa sida kulankan iyo maxabbadan iyo midnimada hadda muuqata ay u bilaabatay inay u noqoto mid sii socota oo loo aayo biidni illaahi alkariim walaalayaal waxaan garan karaa munaasabadan ballaaran ee mas'uuliyiinta ballaaran ay isugu yimaadeen inaanan kelmad dheer ku lahayn ayaan garan karaa balse waxaan rabaa wixii ay ila tahay oo kooban inaan halkan ka soo jeediyo arrintan waxaan u arkaa inay tahay fursad ummaddu maantay ay ku dardaarmi karto oo ay ku ballami karto waxaan rabaa miraha ka soo baxa inay noqdaan kuwa aan si fudud loo beerdarayn oo aan la sii dayn waxaan rabaa in ay noqoto mid ay ka dhalato masaalix ummadeed oo loo aayo oo bulshadu ay wada ilaashato bulshada halkan isugu timid maanta bulshooyinka Midlood waxaan ognahay kala daadad walba oo dhinac kasta ah inuu jiro haday aan leeyahay xagga horumarka iyo haday ahaan leeyahay xagga siyaasadda intaba ayadoo isxambaarsan ayay gogoshaan aan rajaynaynaa inay noqoto mid meel kasta oo dabcan lagu dhoojiyo biidni illaah walaalayaal sida aan wada ognahay ummadu waxay ku horumartaa talo midaysan ayay ku horumartaa waxay ku horumartaa mabaadi lama taabtaana oo ay wada ilaashato inay leedahay marka laga shaqaynayo siyaasaddu maalinba midabay leedahay maalinba siday u taallaa siyaasadaha waxay la macno tahay ama ay u qaab eg tahay sida caqliga bani aadamka oo u kala duwan yahay ayay siyaasaduna u kala duwanaataa marka waxaan u baahannahay yani masaalix dhaqaale oo bulshadaanu ay leedahay oo aan marna raacin isbedbedelka siyaasadeed aan marna raacin qof kasta oo siyaasi ah oo ama beeshan ka dhashay ama Soomaali ahna
uu og yahay oo lagu dhowro inay jirto ayaa lagama maarmaan waxaan aaminsanahay بإذن الله الكريم وحبذا وهذا النجد عن إن النوتو سايان وحن نجحوا معنا أيران دوران عدي عن أرنتاز عن لن ماضو مركا ولا لها ذلك دائرات كأهسميي جوشان سورة جليي أن أغنهي وليسد أي كلا كل من حقوقا عن هدف في أي لهايين إنه مانتي أسورة جلي waxaan kaloo aan rabaa sida ay u qabteen hawshaas ayagoon masaalix shakhsi ah ka lahayn inay sideeda u hoggaamiyaan ayagoo kaashanaya mas-uuliyiinta kala gidisan ee beelweynta hadday ahaan lahaayeen kuwa culimmada ah hadday ahaan hoggaanka culimmada ah aqoon-yahanka kale hoggaankooda hoggaanka dhaqanka hoggaanka siyaasiyiinta hadda xilka haya iyo kuwa xilka ka dayay sida aan ognahay xilku waa maarta waa isu dhiib laakiin waa inay jirto kan xilka haya iyo kan xilka ka dayay ee kan qabad doona wax ay wada dhowraan oo beeshaanu ay leedahay waa inay jiraan walaalayaal waxaan aaminsanahay haddii arrintaas sida aan u tilmaamayo dadhiga fahmi og oo iiga sii fara dhuudhuuban ayaa jira haddii sidaas loo daraasadeeyo sidaasna loo dhaqan geliyo inaan gaari doono hadafka iyo waxa beeshaanu ay mudan tahay oo ay geydo mararka qaarkood walaalayaal mararka qaarkood waxaa dhaca ama soo dhici jiray waxyaabo tala xumo ama tala la-aan ku yimid oo runtii aan u qalmin ummaddan marka waa uga mahad celinayaa walaalaha Soomaaliyeed ee beelweyntan ka dhashay ee arrintaas dareemay ee dadaalka dheeraada u galay waxa kale sidoo kale u mahad celinayaa walaalaha kale ee markii arrinta loo soo bandhigay ee soo dhaweeyay kaalinta muuqatana ka qaatay oo ay kow ka tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee beelweyntan ka soo jeeda runtii ma qabsoomi karo isu imaatin ama shir noocan oo kale ah oo aan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinac walbaba aan laga kaadaynin waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo oo mahad celin uga soo jeediyo khaliif cabdulqaadir macalin nuur maxamed siyaad oo aad ogtihiin tabliiqintii ay wadeen tiimkaas mid kale oo culimanimo inuu ku sii dul waday isla markaas ay muuqato doorka shariifka ah oo uu ka istaahilo beeshan oo noo suuro geliyey mawlacan iyo majliskan wanaagsan ee muxtaramka ah runtii inaan maanta isugu nimaado loo suuro geliyey mar walbana kaalintiisu ay muuqato ayaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo walaalayaal ma rabo inaan warka ku dheeraado مسؤولين بدن أو إذا مدن أي إذا دنبيا بس هو عن ربع كلمات كيان إني وحون متقنا لقاعد أي جيران تاسو عن ربع إن أمريكا لكل عليه مصالح ذا أمضى وإن نجارن هدير بإدمه سلوا حق يجوا مصالح ذا أمضى مبادئ لو ضروره أو أمضى على الله ذا هاي oo danaha ummadan lagu horumariyo haday aan lahayd danaha reer miyiga iyo danaha dadka tabaaleysan ee danyarta ee beelweyntan ka soo jeeda masaalix lagu dhowro oo cid walba naga mid ah oo dhowrto oo siyaasigu dhowro oo culimadu dhowrto oo dhaqanku dhowro oo qayb kasta bulshada kamid ah ay dhowraan ayaan isleeyahay waa ka dhiman yahay halkaas marka waxaan rabaa inaan inta ku koobo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh